ninkayga 9 sanadood buu iga maqan yahay markan uu yeedhaba wuxuu dhaa shaqan wada fasakhaad ma ka qaadan karaa bay leedahay wallahi waa arrin dhib ah labadii qof ee ilaahay zawjaynka lagu tilmaamay nisaa'ukum harthun lakum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun labadii qof ee leeydi dharbaysu ina way isku asturayn inay 9 sanadood kala maqayn iyagoo aan isla qabin isla furin dhibkeeda ay leedahay marka in dhan la isula ciiro way ama xaas la noqdo sida ilaahay uu sheegay fa imsaakum bi ma'ruf aw tasriixun bi ihsaan illa kala tag wanaagsan iyo wada joog wanaagsan marka isaga waxa waajib ku ah xaaska haduu qabi karayo ehel uu ka dhigan karayo inuu toobadkeenu u tago hadii aanu xaas ka dhigan karaynin oo aanu diyaar ahayn inuu iska furo laakiin qadiyada fasakh in waxay noqonaysaa si fiican looga baaraan dego cid ehel u ah oo awood u leeyahay wax fasakhdo ay u tagto culimada halka jooga iyadoo la tashanaysa Soomaalida kadibna isagii loo yeero hadii uu diidana wadooyinkii kala sharciga la maro marka saas taana taladaas aynu raacin lahayn laakiin qoyska in lagu ciyaaro ma xadgudubna uu noqdo laakiin waa sharciga iyo xuquuqda la ilaaliyaa Allah subhanahu wa ta'ala alam